Hordhaca sheekadii hal abuurka ahayd ee bilowga YouTube-ka. Hal mar waagii hore ee internetka, 3 saaxiibo ah oo soo jiidasho fiiro dheer lahaa oo lagu magacaabo Chad, Stephen iyo Jawad ayaa bilaabay raadinta dijitaalka ah. Waxay lahaayeen aragti fikir dheer ah inay abuuraan goob cajiib ah. Halkaas oo dadka ka kala yimid dhammaan dacallada adduunka ay ku wadaagi karaan daqiiqado noloshooda iyada oo loo marayo awoodda muuqaal qaadaha. Boqortooyadan waxaa loo yaqaan YouTube-ka. Sheekadeeduna waxay ka bilaabatay dhulka quruxda badan ee San Bruno, California, sanadkii 2005. Chad Hurley, Stephen Chen iyo Jawad Karim ma ahayn oo keliya hal abuurayaal, balse waxay ahaayeen geesiyaal hore oo ka mid ah boqortooyada shirkaddii loo yaqaanay PayPal oo xirfad u leh farshaxanka hal abuurka iyo tiknoolajiyada. Waxay dareemeen caqabad weyn waqtigooda, la wadaagidda fiidiyowyada asxaabta iyo qoyska waxay u adkayd sidii la dilay masduulaagii xoogga badnaa. Waxay ku fakareen ka waran haddii ay jirto hab loo sameeyo wadaagista fiidiyowga mid fudud sida warqad loo diro. Markay dhalaalayaan muraayadaha kombiyuutarkooda garaash yar waxay u kaba gashadeen si ay u abuuraan muuqaal. Samayntii ugu horreysay ee YouTube waxay ahayd goob cajiib ah, halkaas oo qof kasta laga soo bilaabo tuulada ugu hoosaysa ilaa sayidkii ugu weynaa uu ku shubi karo sheekadooda iyo khibradahooda si ay u wada arkaan. Fiidiyowgii ugu horreeyey aniga oo jooga beerta xayawaanka wuxuu ahaa bilow fudud oo qoto dheer, muujinaya Jawad Karim oo hortaagan maroodiyaasha sharafta leh oo calaamadaynaya weji cusub. Ereyga YouTube wuxuu ku faafay sida dab duurjoogta ah oo dhan boqortooyooyinkii. Dadku waxay ku majaajiloodeen inay arkaan dhul fog, waxna ka bartaan sayidyadii fogaa, iyo inay ku qoslaan maaweelada kaftanka ka imanaya hirarka badda. Waxay ahayd meel qof kasta uu noqon karo baarka, macalinka, ama sheeko yaqaanka. Laakiin xoog weyn ayaa la yimid dareen weyn. Boqortooyada Google oo caan ku ah maktabado baaxad leh iyo duuduubyo aqooneed oo aan dhammaad lahayn ayaa arkay awoodda ka jirta boqortooyadan soo koraysa. Sanadkii 2006 oo leh sanduuqa kaydka ah ee 1 bilyan iyo 600 oo milyan lacag dhan ayuu ku iibsaday. Google wuxuu ku soo dhoweeyey YouTube inuu ka mid noqdo qoyskeeda cajiibka, isaga oo hubinaya in sixirkiisu uu gaari doono gees kasta oo adduunka dhan ah. Sida YouTube u koray, waxa ay noqotay in ka badan oo keliya portal, waxay ahayd goob suuq ah oo fikrado ah, marxalad hibada aan la garanayn, iyo meel quduus ah kuwa aqoonta doonaya. Laga soo bilaabo shayga ugu yar ee fluksyada gaarka ah ilaa qaylada aadka u badan ee dareenka fayraska, YouTube waxay noqotay wadnaha dada dijitaalka ah oo ku garaacday laxanka codadka kala duwan ee aadanaha. Oo sidaas daraaddeed, sheekada YouTube waa mid saaxiibtinimo, hal abuurnimo, iyo arrin ruuxaniya la xidhiidha xidhiidhka aadanaha ee aan xadka lahayn. Waxay u taagan tahay ifafaale hal abuurnimo, marag madoon ah fikradda ah in marka dadku isu yimaadaan si ay u wadaagaan sheekooyinkooda, dunidu waxay noqotaa mid yar oo yar, iftiin yar, iyo isku xirnaan aan dhammaad lahayn. Goobtan fursadaha aan dhammaadka lahayn, qof kastaa wuxuu leeyahay cod kastaana wuxuu leeyahay awood uu ku soo bandhigo dhacdo hore iyo to hadda taaganba ama qarniyadii hore. Waxayna kulligood wadaageen awoodda adamaha meeshay ku uruuran siday qiimaha u yeelato. Gabagabadii iyo gunaanadka sheekadani waa beer ballaadhan oo 3 saaxiibi sameeyeen qofba inba ka soo gaadhay oo qosleen si wada jir ah boqortooyada weligeed sii fidaysa ee YouTube. Barnaamijkii Ogaal waa naga intaas.